habar gidir waxa liiska ugu jiro inay tahay qabiilka kaliya ee Soomaaliyeed ee qabiil kale Soomaali ugu gumaystay ya qabiilka kaliya ee qabiil kale Soomaali ugu gumaystay inay tahay habar gidir liis ugu jirto wala socotaan history wala harqistaan xaar dheere hobyo nimagii reekeen dida ma jeerteen abwaanadii habar gidir qabiilkii ugu macnaha oo ugu cataatirsanaa oo ugu bahdilsanaa ee tiriyaan ayaan meeris kamid halka ku wadaagaya sumadaha loo dhigay habar gidir waxa loo diiday inay dhuusa marab ka soo gasho doorashada Cabdullaahi Ciise inay gaalkacay ka soo gasho inay hobyo ka soo gasho inay xaar dheere ka soo gasho inay gurcaali cadaada ka soo gasho maali ka soo gasho history qoran waay pure history waay ma ahan waxaan uga sameeyay maahan cali jimcaalaha soo waday balad weyno asoo Cabdullaahi Ciise afka ku dhashay oo balad weyno ka soo galiyay qodobka horta maalinkaas Cabdullaahi Ciise shalay ah habar gidir gumaysi ku jirta maalinkaas nin abwaana oo kamid ahaayeen abwaaninta habar gidir xilligaas ka aad uga calool xumaaday wixii meesha ka dhacay tabardaradii haysatay iyo dandaradii habar gidir meeshaas wuxuu yiri garkoon xiiro guud koon tidciyo gabarnima iyak labadan waran inaan gubaa iyak garaan inaan xurtiyo gutiiniyo inaan gashtaa iyak goobta uu rag joogaba inaan garab mara iyak gosha webiga geedaha ku yaal inaan galaa iyak gosha webiga geedaha ku yaal inaan galaa iyak halkaas markay taagantaa marka habar gidir dad sidaas ahay oo qabiil Soomaaliyeed saas u galo wahay maalinka Kennedy oo habar gidir suntaay aqeed seedo wuxuu gowrac labada dhagood saar xabad lagu madilin gowrac yaani waa la gowracay labada dhagooda gowrac loo saaray agadhig oo ahay madaxii ciidamadii daraawishta Maxamed Yaasid Maxamed Abdullaahi Xasan ayuu 6 saac la gowracay hadda lama dilin xabad lagu madilin oo lagu madilin inta la soo qabtaa sidii naaf ariya la gowracay maalinkaas habar gidir hobyo iyo gaalkacyo iyo dhuusa mareeb waa lagu raranay daarood ku raranay ayadoo sidaas taa marka oo beel Soomaaliyeed oo cimrigeeda aan la gumaysan oo kale aysan jirin habar gidir inay xawaalada ku soo lagu xirato oo xawaalada shalay Cabdullaahi Ciise u soo saaray oo dad uga dhigay ay ku mataqaanahay ay tiraahdo maanta ay sambolshi iyo ninkii xawaalada xil qabtay ugaaska xawaalada maanta caayaan horta garashu ma geeyna wax u geysan garaa dariya u geys waxa la isaga haraana ma sidoo kale habar gidir dhulkeedii anigu ilaa hadda haysta iska dhaaf xawaalo kor iska dhaaf agoon iska dhaaf jifada aniga ka dhasho cigal la xaajiya degan algaab degan way og yihiin they know them jifada aniga ka dhashay aad degan dhulka anu ku soo koro habeen kasta ka sheekayo algaab waay alaab degan oo ku dhashay dhulkaas nama sheegnan war maanan habar gidir ka qaadan ayaguna way og yihiin halkaas markay taaganta marka habar gidir dagaaladeedii waa sidaas horta maxay idin soo haray عايديد dhulka habar gidir tiriyo habi u xagayso gurceel u sokeeyo deegaan oo ka waay taagiga habar gidir kan taagiga nimanka la yiraahdo Maxamed Siyaad Barre aan fadhiyo asagoo cala farjana yimid على ورديك لا قدامي وياسي هاي لما يسنو قدام مسا قدامي لوغا دغي عيدك ugu xooganaay oo USC lahaday xawaalowha wax cad waay sababtoo ah hubkii dawladda Soomaaliya laga qaaday dadkii ugu badnaa gacanta u gala xawaalowha dadkii ugu badnaa hubkii dawladda Maxamed Siyaad Barre laga qabto gacanta u galay ma garanaysaan
عايدين سيدا سوق صباح عايدين سيدا سوق صباحي أو US يكون نقدي دمنا أيجا أودلين وحمر كودلين دمنا أيجا أودلين halkaas markay taagan marka ilmo yareeyo marka 1991 1992 1993 1994 afartii bilood kadib ama dhashay ama ayagoo beejad ku taala markaas dhashay waxba history aan ka ogeyn oo xamaro habagir qadca gaar u yaal indhaha ku soo kala qaaday horta history waxba kama oga waxba kama oga lana ma tirsa karo ilaa adu ku roon yahay hadaan uu xoogaa laho wax badan u soo joogayo ilaa adu ku roon yahay halka badan soo galayo ayaana ilmaha yareeyo marka oo afartii bilood dagaalka afar bilood ku dhashay ama beejad ku dil wallahi inaan la doodin laakiin waxay yihiin dadka baro waay waxay yihiin dadka inaan baro waay halkaas markay taagan marka habar gidir marreexaan nimanka la yiraahdo ayaa soo qumiyay hadda waa sidii geela la soo qumiyay degmada Matabangaroore oo aniga ay la hadlaayo familkaygu degan yahay oo aan ku dhashay ayaa habagii looga reebay nimanka la yiraahdo marreexaan history waa waxaan qoran oo jiro waa sandool guur Allah naxariistee oo nabadoon awood badan ahay oo Soomaalidu way ogtahay history Soomaalidu baa haldaa ugu jiro ayaa hadal dhaxal ka tagay wuxuu ka tagay habar gidir ayaana duunku ugu nacabahay laakiin waxaan ka sii nacabahay wixii ayada nacab sababtoo ah dad ballan maahan dad qowl hadaad meel dhigataan isugu imaanaysaan maahan waa kuwa ilaahaygi subxaanahu wa tacaala hay oo habaare ma garanaysaan sidoo kale wuxuu yiri habar gidir dadkana ka celi ayadana kala celi adiguna iska celi فهمت كلا علي دتك كعلي أدوقون اسك علي حال كاس مركي تاجنت أمرك حمر قدر أنا أنت مالي إذا ما يسكسور حرتي حقاس مجرتك كسر تمي أنت مريحك تمي أنت مرصدك تمي أنت حوالك تمي أي ما أنت حلالك أفك يوجو صهرت أفك باش أنا ليا دوعة دوعة بادية جوتو قليا حلي هذا هدي بهتان وي قيلدا هدي درقنتان وي قيلدا مر والبا وي قيلدا ايدو وليغا مسلمارك ما انت waxay noqotay inay qaylo xilka sida mursal loo sii kara xilka sida xawala loo sii kara habaar duqdi gadireheed ay ugu dhimatay ay qabaan habaar duqdi gadireheed ugu dhimatay ay qabaan qaylaan dhamaan ayaa ka mid ah habaarkaas hadda ma xasuustee qayladii waqti maanta waxay la taagan yihiin iyo gaajaan harin habar gidir dhagan weligii maaragteen gaajaan harin iyo qaylaan dhamaan ayaa ka mid ahay weligeed ayagoo qaylinaya arko aamusan lama hayo ayagoo dhargayaarka lama hayo halkaas markay joogto marka habar gidir dadka ay la ficiltami karto ama ay la hadli karto ama ay u baalaxaftay kartaa we are not included aniga maaha not us safaani dhigayso raada aniga ma ahan ma aqaan dadka u baalaxaftay ma jiro aniga maaha nin balandheeraha banaan degan oo xawaale maxamed la yiraahdo Soomaali ciidu faraha saara aysan guul waligeed keenanahay